maxamed islaam ayaa maanta ka dhacay degmada afmadow ee gobolka Jubbada Hoose. Shacabka ku dhaqan degmada afmadow ay isugu soo baxay taageerada ay u muujinayaan madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam oo u tartamay xilka madaxweynaha Jubbaland ayaa shacabka oo sita sawirada madaxweyne Axmed Maxamed Islaam waxa ay socdaal dheer ku soo mareen suuqa iyo xaafadaha kadib waxa ay isugu yimaadeen barxadda degmada afmadow. qaar ka mid ah dadkii ka soo qayb galay oo la hadlay warbaahinta Jubbaland ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin sida habsami socodka doorashooyinka Jubbaland loo wado iyadoona ay sheegeen inay taageersan yihiin soo noqoshada madaxweyne Axmed Maxamed Islaam. maanta farxadeeda wallahi lama koobi karo waayo maanta waxaan raacsanahay Axmed Maxamed Islaam ma rabin in kale inuu imaado wadanka uma ogoli in soo imaado meelaha ka imaado ma ogoli waxaan doonayaa ninkii xornimada iyo soo koobi kara maanta qiiradayada sida ay qiiradayada u kacsan tahay wax la soo koobi karo ma ahan qabya ninkeeda ayaa dhamaystira madaxweyne mar labaad iyo mar saddexaad ba soo noqo aad baan u kacsanahay afado hadaan nahay hooyooyinka haweenka ardada waxgaradka aqoonyahanka macallimiinta kulli waan maartay maanta wax qiiradayada la soo koobi karo ma ahan afmadow dhammaan ardaydii odayaashii dumarkii kulli waa soo wada baxeen waxaan u hambalyeynaa mar labaad mar saddexaad u hambalyeynaa madaxweyneena Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe inuu ku soo noqdo xilka insha Allah wuuna ku soo noqon doonaa baarlamaankii la soo xulay oo loo sameeyay gudoomiye iyo ku-xigeenadiisii ayaan taageersanahay in uu madaxweynaha mustaqbalka uu noqdo Axmed Islaam Axmed Madoobe. maamulka degmada afmadow ayaa ka soo qayb galay banaanbaxa lagu taageerayay doorashada Jubbaland. gudoomiyaha degmada afmadow Yuusuf Xasan Xuseen oo ka hadlay goobta ayaa sheegay in shacabka reer Jubbaland aysan u baahnayn siyaasi danaysta ah oo aan samata bixin ummadda reer Jubbaland. taasi beddelkeeda ayuu sheegay gudoomiyuhu in shacabka reer Jubbaland ay ilaashadaan nabadgelyada iyo horumarka ay haystaan. sida quruxda badan ee cadaaladdu ku dhisan tahay ee dawladnimadu ku dhisan tahay ee habsamida leh nabadgelyadu ku dhisan tahay ee loo soo xulay gudoomiyaha baarlamaanka Jubbaland taas oo cid kasta ay dareemi karto sida loo soo doortay ama qaabku ku yimid in ay tahay qaab cadaalada waan u hambalyeeynaa gudoomiyaha cusub soo dhawow baan leenahay waxaan rajaynaynaa mustaqbalka dhow iyo midka dheerba midka hogaamin doona baarlamaanka Jubbaland inuu yahay waxaan leenahay ummadda wax sheegaysa Soomaali kala geynteeda ku jirta waxaan leenahay dib isugu noqda ummadda maanta waxay u baahan tahay samata bixin waxay u baahan tahay amni waxay u baahan tahay magaranaysaa horumar laakiin oo baahna ummadda burbur iyo kala geyn oo baahna ummadda Soomaaliyeed waxaan ugu baaqaynaa sida quruxda badan ee Jubbaland maanta cageeda isugu istaagtay inay uga qayb galaan ama ay ugu soo dhaweeyaan hadduu Ilaahay yiraahdo taasoo uga galeenahay mustaqbalka dhow madaxweynaha iman doona madaxweynaha Axmed Maxamed Islaam waxaan aaminsanahay shakhsiga maanta ka bixi kara meeshan inuu yahay waxaan aaminsanahay ummadda reer Jubbaland ninka isku wadi kara inuu yahay maanta waxaan aaminsanahay ninka cadaaladda ugu dhow inuu yahay waxaan aaminsanahay ninka horumarka iyo dib u heshiisiinta iyo wadanka horumarkiisa ka shaqeyn kara